Hi guys, anigo Cabdiraxmaana janalkuna waa Fanaan Cook. Waxaan maanta inoo wadaa mango cake aan isla fiirino sidaan u sameeyey. Waxaa halkan noogu diyaarsan cambo. Cambahan ayaan soo jarjareynaa ama soo diyaarsanaynaa. Aniga hadda labadan cambe ayaan rabaa inaan jarjarto aan ku samaysto mango cake-gayga. Laakiin adiga inta kugu filan oo cake-gaaga ku filnaanaya inaad ku samaystid. Aniga hadda labadan xabo ayaa igu filan. Labadan xabo ayaan jarjartay. Kadib waxaan ku darsanayaa sokor aan soo qiyaastay. Markaan sokorta ku daro kadib waxaan ku darsanayaa hal koob oo saliid ah. Intan ayaan rabaa inaan isku soo shiido, marka baleerkaan aan kusoo shiidaya. Markaan soo shiidano ay noo noqdaan aan ku dhahay mid aad yacni smooth ah, waxaan ku shubahaynaa markaas baaquliga. Baaquligan markaan ku shubano kadib waxaan ku darsahaynaa bur. Waxaan rabnaa inaan diyaarsano markaas keeggeena sii diyaarsano. Hal koob oo bur aan ku darsanayaa, halkan koob burkaan ku shaqshaqayaa. Xoogaa adiga shaqshaqaan waxa waaye wixii yar oo burka oo hadhow yacni burka kuusku wax u yeelayo ka reebaya. Kadib waa isku walaaqaynaa marka halkeeni koob bur marku darsado waa ku walaaqayaa. Waxaan rabaa inuu la noqdo kale sida yacni keeg camal yacni oo jilcan adeegna aan ahayn yacni jilicaasan ahayn sida keeg loogu talagalay ah. Xoogaa waa iga yara jilcan yahay, hal koob bur aan ku darsanayaa. Kadib waa ku walaaqayaa. Hadda ayuu noo noqday sidii la rabay ama sidii loogu talagalay keegga. Kadib waxaan ku darsanayaa hal macalga oo baking powder ah. Iyo sidoo kale waxaan ku darsan doonaa hal macalga vanilla ama carfise ah. Yacni carfise uun yacni hadhow keegga mid caraf ah kuu noqdo uun ayuu muhiimad u leedahay. Kadib waxaan soo qaadanayaa markaas saxankii aan la geli lahaa furunka. Saxanka waxaa iga hooseeyo ama saxanka waxaa ii saaran warqad zubda oo hadhow ii celinaysa inay keegga ku dhegin micnaha meesha. Kadib keeggan ayaan si tartiib ugu shubanaynaa. Yacni si uu shubmaya xitaa ujeedaa waa sida keegga loogu talagalay oo maasha Allah ah. Kadib markuu noo buuxsamo saxankan waxaan gashanaynaa markaas furunka. Waxaan sugaynaa ilaa inta uu nooga soo diyaarsamayo keeggeena. Inta furunka noogu jiro keegga waxaan sii diyaarsanaynaa karameel. Waxaan dabka saarahaynaa sokor. Sokortana xoogaa sugaynaa ilaa inta ay yacni ka dhalaalayso. Waa sugaynaa waa ku walaaqaynaa. Waa kan hadda kalarkeeda xoogaa wuxuu noqday mid dahabi ah. Waa sugaynaa weli ilaa inta ay ka dhalaalayso. Sokorta markaan markay ay saan noo noqoto waxaan ku darsanaynaa markaas wax yar oo butter ah oo yacni caraf fiican uu sii yeelaa maasha Allah. Markaan ku darsano butterka oo butterka si fiican ugu sii walaaqno xoogaa kalarkeeda xitaa xoogaa wuu isbedelay. Markaan ku walaaqno kadib waxaan ku darsaynaa markaas xoogaa yar oo caano ah, hal koob halfkiil ama hal koob camal wax ku dhow. Kadib yacni waxaan ugu shubaynaa marka si tartiib ah oo macalqada ugu ilaalinaa. يعني هذا عمر كله شبنا حلقة من عمر يعني في الاستوات كهذا يعني حد يعني ترتيب وشوب كدي بكولاق كدي بكرمال كاغا وحكون قنامد او سيد لوgu talagalay eh waa kana had si qaab fiican ayuu noo noqday waa kana keegani oo sida noogu soo baxay qurxan maasha Allah ay waxaan rabnaa markii inaan karameelka kor ugu shubano ilaa inta uu geesaha ka gaaraya ku shubaynaa maasha Allah sidan quruxda badan ayuu noogu soo baxay I wish inaad tijaabid doontid aan keeli doontid haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saar si ay u bataan asxaabta Fanaan Cook video like saar share garee si ay u bataan asxaabta Fanaan Cook